xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow kuwii xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshe dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshe rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow kuwii xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow dhulkeennu waa dihin yahe webiyada dilaacin dhulkeennu waa dihin yahe webiyada dilaacin haddanoo diraysaan annaga diyaaro haddanoo diraysaan annaga diyaaro diidi mayne diidi mayne haddanoo diraysaan annaga diyaaro haddanoo diraysaan annaga diyaaro diidi mayne diidi mayne xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow kuwii xumaha diidaye wanaagga doonayow xaqayagiina tusiyey kuwii dilaaciyow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow waxaan rabaa inaan idiin sheego warbixin yar ku saabsan tababarka ka socda gudaha madaxtooyada ciidanka aad arkaysiin saaka oo ku jira tababarka oo ciidan gaaraya ilaa 130 askari waxay tababarka u socdeen 3 bilood sida ka warqabtiin madaxweynuhu wuxuu galay safar oo hore aan wili soo marin dalka ilaa 17 cisho
ciidanka la socday madaxweynaha sida aragteen waa ogeedeen waxay ahayn ciidan aad u diyaarsan waa waqti badan iyo juhdi badan la geliyay waxaan ugu talagalnay ciidankan hadda sida u jeedin waxay ku jiraan digtoonow waxay saaka soo mareen 30 kiiloomitir isku weera oo isla gudaha ay tababarka oo ka socdo waxaan ugu talagalnay inaan dhisno jirkooda askariga uu dul qaadan karo bil 2 bilood oo raashinka cuno lahay iyo wuxuu ku seexan lahay qorgiis iyo booshkiis iyo boorsadiis oo doodka ku qaato si uu u adkaysto safarka madaxda oo la socdo in uu dareemin habacsanaan dhinaca amniga ah sida darteed waxaan sameynay oo awood badan gelinay in ciidanka tababar kala duwan la siiyo saaka 12 saac tababarka bilowday ilaa hadda waqtiga u jeedin oo 3 saac subaxnimo oo socda waxaan u talagalnay inuu askariga dulqaad u leeyahay oo gaajada u adkaysto taagnida iyo socodka oo masaafo dheer oo socod kariyo lagu karo askariga hadii ay noqoto madaxweynuhu inuu safar gobol galo waxa u diyaarsan ciidan oo aan u talagalnay in tababarkaas aan u talagalnay waxa uu tababarin hay'adaha ciidankaas waxa la yiraahdaa ay dul qaataan in gaajada iyo haraadka iyo waxa la yiraahdaa shaqada culeyskeeda